aniga magacayga waxaa la yiraahaa Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame waxaan ahay nin abukaata ah oo ku nool dalka Mareykanka dalkana muddo ka soo shaqeeyay waqtiyadii dawladii hore 90 burburtay ay jirtay oday Soomaaliyeed baan ahay marka u horeysa oday reer galguduud aan ahay oday reer Dhuusamareebeed aan ahay oday reer Xamar aan ahay oday waxaan ahay qurbaha ku nool haddii qabiil ahaan hadda la yiraahana anu waxaan ka soo jeedaa qabiilka Mareexaanka la yiraaho dadkii Soomaaliyeed hadda bil Ramadaanna ku jira dhaqaalaad yari iyo xilli abaareedna ku jira يعني هنا هذا إذا مدي ذلك أي مجالات مقدسو dhexdeeda ay isku cayrsadaan shacbiga Soomaaliyeed oo hadda culayskii hore oo labada waji lahaay oo ahaa shabaab iyo dawladda iyo dadka isla jira oo dawladda la jiro hal dhinaca iyo shabaab yani ay ahayd hadda sida wax ku socdeen laakiin waxa uu hadda front saddexaad inay frontay oo ah within dadkii isla socday dhexdooda oo ayagu fikrad ahaan laga dhici kartay inay kala duwanaan laakiin hadda xabada hal meel u wada ridaayay ayaga dhexdoodii inay hadda ka tafantay oo ninka hadda Xamar qori ku haystay oo ama si uu isku ilaalinay ama nin shabaab oo hadda iska ilaalinay asoo ha iska ilaaliyo laakiin haddana magaalada safety-geedu qayb ka ahaa dadka ku jira in la yiraahdo hubka ma haysan kartid aniga kaliya haysanaya waxay ila tahay garashadaas oo garasho gurcan inay tahan u maleynaya waxaan u maleynayaa dalkan hubka la qaadayo institution-ka qaadayo ruuxiisu awood uu ku kaydiyo hubka malahan awood uu mataqaana makhaasiina la dhiga maahana waxa way hubku wuxuu maraa yani gacmo badan baa ilaaliya hubku tirokoob uu leeyahay meelaha la geliyayo waxa weeye inuusan dawladda marka hubkii inuu hadda aan wararkan maqlayo waxa weeye hubkii waa raqiisoodeen baa leeyahay suuqa yani markii la qaado haddana dhanka kale laga sii gadaya waxana aan maqlayno inuu soo gaaray runtii aan aad baan siyaasadda Xamar iyo guud ahaan ula socdaa marka hadda anu ma garanayo xoog baan wax ku maqooninayna meesha ay ka imaanaysa yaa dawladda hadii xoog ay leedahay hadii maxaa xooga laba bilood baad dawladdaanu joogtaa dawladdaanuna ilaa 12 sano hadii dawladnimo uu Xamar ka jiray wax kasta ha ahaatee xooga hadda soo baxay anu ma garanayo meesha uu ka yimid xooga aan gaari karin inuu caafimaad siiyo xooga aan gaari karin inuu iskuul siiyo xooga aan gaari karin inuu mushaar bixiyo xooga aan gaari karin inuu afgooye calanka halka ka taagan shabaabka oo labada ciidan isu jeedaan aan waxba ka qaban karin oo halkaan la imaanaya ma garanayo runtii waxa uu ku fadhiyo waa fikrad lagu degdegay waa fikrad aan u maleynayo inay tahay anu runtii shaki aan ka qabo in dawladnimada la rabo in lagu sii burburiyo oo intii yareedo hadda iftiinka hay'adu jirtay maxaa yeelay dawladdu waa dadka hadii dadkii ishiinsanayay hadda ay kala shakiyaana u maleyn maayo inay wax sii socon karaan marka anu waxaan qabaa hubka dhigiddu qof walba waa rabaa laakiin hadda hubka yaa loo dhiibaya yani hubka dawladda isku raacsan yahay horta ma jirtaa waxaan dhoodhoob weeyo oo hadda ciidamada Amazon oo jooga iyo hadda fundingkaas lacagaha laga helay nimankan ajnabiga ah iyo donoriska iyo inagu jiritaan ahaan u jiraa labadaas haday meesha ka baxaan square 1kii baan ku noqonaynaa marka aan waxaan u maleynayaa inay safety-ga Amazon hadda ugu jirin sidaas hadda dawladdu imkaaniyaadka qaadatay Xasan iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u maleyn maayo magaalada inay ka keeni karaan anu nabad u maleyn maayo sidaan hadda ay ku socdaan marka hadee waa un tala xumadii Soomaaliyeed oo maalin walba u taagneed baan u maleynayaa oo ahayd maarta hadda meel isku qaadkii federalism baan la nimid waxaan la nimid hubaan dhigaynaa baan hadda
dib u heshiisiin lama dhigin eedo weyn baa jira dadku qalbiga isku haya dekadihii dalka dad baa kala haysta airportadii dadka dad qabaa'ilaa kala haysta jidadkii lama mari karo oo infrastructurekii dawliga ah maanta diyaarad in la raaca maahan qof maanta joortay kara ma jiro marka ma garanaya hadee yani waalidana meesha ay runtii haddaan runta idin yani ka hadalana annaga dadka banaanka jooga runtii meeshaas khayr kama soo socdo sida muuqata meeshaas runtii khayr kama soo socoto talaabadan la qaaday marka dad baa la dilayaa marka dadka la dilayo qoryaha lagu furaayo askartaan dulayso they have legitimate inay dadka dilaan waa su'aal furan waay qofku yaa awood u leh maanta inuu qof qori ka qaado who you are aduu kuma tahay markaad qoriga qaadaysid dawladda la isku raacsan yahay ma tahay waxaan soo wax la dhoodhoobahay oo gacan ku rimiso yani socod barad ah marka waxaan u maleynayaa hubka in la qaado waa fiican tahay laakiin wax badan baa ka horeeya hubkaan lacag baa lagu kala gatay hadii lacagtii qofkii lahaa haduu ku leeyahay lacag baan ka gatay lacag iga gad waa fikrada furan marka ma garanayo waxaan maqlay hadda hubkii waa lala baxaa la leeyahay oo hadda shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhaxal la kala aaday sidaan maqlay dariiqadii baa la isu fariisan doonaa marka hadda ma garanayo horta waxaa laga rabaa hadday dhacdo qof hadda hub ku dhibay ama ku geystay dabcan dadka xamar jooga oo isla socda ah laakiin dana kala duwan ha lahaadeen isla socda iyagoo hadda shabaab ku wajahan dhinac ka mid uu oran karaa war hubkaagii hadda waxbaa lagu dhimay haddii wax lagu dhimayna haddii mas-uuliyadeeda waa inaad qaadaa maxaa yeelay hubka haddii qori gurigaaga yaalla intii lasoo qaado qof lagu dilo dabcan adaa mas-uuliyadeeda qaadaya marka maxkamad waa lagugu keeni karaa haddii marka dawladda waxaa laga rabaa caddayntaas inay dadka usoo bandhigto oo tiraahdo x and y hubkii ay haysteen baa wax lagu dhacay wax lagu dilay halkaan yimid laakiin qofku hadduu bakhaar ama iskaga jiro ama meel iska yaalo oo soo waxba dhimin oo dadkaas cadawgaas guud oo shabaabka loo haysto sabab qofkaas markaas loo aada ma ahayn oo aduuba ku caawinaya adiga dawladda sheeganayo ku caawinaya tan kale dad xamar yani ilaa 2 milyan baa ku nool baa la dhahaa ma la isku raacsan yahay structure-ka dawliga ah oo yimid meesha waa dhici ka dhaca 400 yani dawladdaanu 200 oo nin baa doortay madax yani popular vote ma helin dawladdaanu mandate from Ras Kambono to Ras Casayne dadka Soomaaliyeed ama 10 milyan ah uma voodin dawladdaana waxa u vooday dad siday ku soo baxeen aan ognahay dad yani wax un gacan rimis ahaayo iska yani structure ahaayo UN-ka iyo hay'adahan donorska ay wadeen oo structure soo representative oo khasab ku socday oo la ogaa cadaada markii hadda doorashadu ka dhacaysay yani ciidamada ajnabi ah amxaar inay ilaalinayeen oo dadku ay soo ahayn baydhaba inay sidoo kale ahayd Kismaayo inay sidoo kale ahayd yani Puntland inay sidoo yani ma ahayn wax ka soo gaay dadka yani waxay ahayd war meeshaan vacuum-ka ah oo halaqgaleeyaysan noqon wuxun structure oo dad aan kala hadalno anu abuur Soomaaliya ay ahayd dawladnimadana hadda jirta marka taas hadaad marka adigu sii durugsatid oo waxaas dhoobka tiraado maya anigu popular vote baan haystaayo shacbiga Soomaaliyeed baa idmaday inaan hubka qaado war 2 milyan waa ognahay xamar yani waa la isku dhacay xamar waxaan ognahay qabaa'ilada jooga siday u kala tabanayeen oo dawladii hore baarlamaanka yani hebel soo galinay hebel soo gal sida ahayd tii marka hadaad ugu dirtid qofkii culayskaas ku dhacay oo hubka haystay oo kula dirirayay atraad hubkan ka qaaday banaankan ku dhigaya qofku cudud kale noqonaya marka hadda waxa dhici karta force kale oo shabaab aan hayn inay abuurantaa hadda dhici karta waana mid hadda formationkeedu socoto ilaa intaan ogahayna wada hadalkaas waa socdaayo doodo furan waay marka hadda hubka yani legit maxaa ku qaadaysaa يعني يا معنا كابن تخوين أو يعني بناتيخ بدن ميات كو قاديسا واحد كو قاديسا أنا UN كو قلادي أو قونسين مدحوينا أما برايم منسترات كو قاديسا يعني محا مرجعوا شرعيات ده وحان أدكو قاديسي
sharciyadaanu ilaa limit bay ahayd midaan dowladdaanu waa ilaa very limit bal in Soomaaliya laga dhigo waxa socod barada in laakiin inay ilaa heerkaas u daadegi karto marka hore service-kii baa ka horeeyay qofkan waxa uu hubka u leeyahay nabadkeen nabadana waxay ku timaadaa baahi baa jirtan baahid xamar waxaa ka jira intaas oo islaamis magaalooyin baa ka abuurmay yani qaxooti baan ogahay inay ka jiraan oo dadkoodu baahan yahay oo tuug noqon karo oo wax dili karo oo shabaab ku qarsoomi karo xal u hel bal adigu marka hore nidaamkii dawliga ahaa oo la rabay marka waxaan u maleynayaa iska fudaydkii hadii ma taqaana aynu iska qabnay ummadda Soomaaliyeed hadaynu nahay oo runtii aad moodid mararka qaar qofka Soomaaliga marka awood helo hilaac baa hor ordaya aan run ahayn hilaacaas marka mid walba fishil Xasan Sheekh uu ku dhacay Shariif ku dhacay Abdullahi Yusuf buu ku dhacay Cabdiqaasim buu ku dhacay ilaa dawladii Maxamed Siyaad buu ku dhacay hilaaci Brazil Soomaali baan xoreynayna isu keenayna waa mid maanta halkaan hilaaci hore leegado ahaa mataqaana shaqada Soomaaliyeed baan isu keenayna mid ay gaarsiiyay hilaaci hore oo waqooyi ahaa mataqaana Soomaali baan midoobayna oo maantana waa يعني waxaan laga fiirsan anu waxaan qabaa tiibay maanta taagan tahay hilaaci baa muuqda waynu xal iyo salama ninka qoryoolay fadhiya oo hubka shabaab halkaas fadhiya inaad tiraahdo waan ka qaadaya dadka adigu marka qofka xira u abuur dawladda waa in dadka xira dadka gelisaa tiraahda ana qoryadan siina ama qof kasto Soomaaliya laba askari la siiya qof kasto askari oo xamar jooga 2 milyan waa in laba askari la siiya hubkan ayagu ay dhiibaan oo ilaalisa qof kasta awood ma loo leeyahay marka taas dawladdu inay dhacdo marka waxaan u maleynayaa anigu waxaan qabaa hiraab halala hadlo si degan haloola hadlo halala fariisto culayska hadda ayagu saaran yahay ama ayaga deegaanka u badan dadkaas hadda taqaana qabiilka hiraab loo dhiro oo marka saas ay ila tahay inaynu wax ku wadno Avocado Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo qareen Soomaali Mareykan kana howlgala xafiiska qareenada gobolka Ohio ee wadanka Mareykanka oo isaga oo Ohio jooga qadka telefoonka igu waramayay